بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ورقسن داوديال كسو dhawaada warka galkala online qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulan la qaatay madaxweynaha Galmudug. kulankaasi waxa uu ku saabsanaa doorashooyinka Soomaaliya. Al-Shabaab waxa ay weerar ka fulisay gudaha Kenya. weerarkaasi waxa lagu soo waramayaa inuu khasaare geystay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee la magacaabay oo kulamo ka wada magaalada Muqdisho. meydka sarkaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo laga helay hotel ku yaala magaalada Muqdisho. qodobadaasi oo kala faahfaahsan u diyaar garaba daawadiga. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dalka. waxaan xalay kulan marar dhal la qaatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaana ka wada hadalnay arrimaha doorashada kaalinta Galmudug iyo waliba sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Galmudugta loo dhan yahay iyo waxyaabaha horyaala maamulka cusub ee Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. madaxweynaha Galmudug ayaa uu yiri Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee la filayo dalka inay ka dhacdo 2021. taliyaha cusub ee ciidamada howlgalka Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku tagay xerada ciidamada AMISOM ee qaybta shanaad ee ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle. booqashada ayaa qayb ka ahayd isbarasho uu ku marayo dhammaan 6 waaxood ee AMISOM ay ku leedahay dalka Soomaaliya. ciidamada Burundi oo ka hoos shaqeeya AMISOM ayaa waxa ay gacanta ku hayaan qaybta shanaad xaruntoodu tahay magaalada Jowhar, halkaas oo xarun ay u tahay dowlad goboleedka Hirshabelle oo qiyaastii 90 kiiloomitir u jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. taliyaha ayaa ciidamada AMISOM waxa uu kala hadlay waxqabadka ciidamada AMISOM. waxa uu sidoo kale kala hadlay sida xarakada Al-Shabaab loola gali lahaa dagaal looga saaro goobaha ay ka maamulaan Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada Muqdisho waxa uu xalay kulan kula qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan beesha oo ka soo jeeda. kulanka ayaa ahaa mid ku saabsan taageerada ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidii codka kalsoonida oo uga heli lahaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Goodlaw. ra'iisul wasaare Maxamed Roble ayaa waxa uu dadaal ugu jiraa sidii uu kasban lahaa xildhibaanada golaha shacabka iyo sidii kalsoonida ay u siin lahaayeen. waxaana la qorsheynayaa in toddobaadka soo socda uu hortagi doono baarlamaanka. Maxamed Roble ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee Soomaaliya ayaa horay kulan waxa uu la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Nur Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Muudey. xildhibaano iyo wasiiro kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid isbarasho ah. midka sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxa laga helay hotel ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida ay sheegayaan warka laga helay magaalada Muqdisho. midka sarkaalka ayaa waxa laga helay hotel lagu magacaabo Ridwaan oo ku yaala xaafad ka tirsan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. waxaana la sheegay in sarkaalkaasi la dilay. wali lama oga waxa sababay dhimashada sarkaalkan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. waxaana lagu soo gaabiyay sarkaalkaasi magaciisa Shariif isla markaasna kamid ahaa ilaalada xarunta madaxtooyada. warka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in meydka marxuumka la geeyay xarunta CID isla markaasna iminkan uu socdo baaritaan lagu baadagoobayo ciddii ka dambeysay dilkiisa. waxaana xusid mudan in la xiray mulkiilihii hotelkaasi Ridwaan oo laga helay meydkiisa.